بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإني سلامي ومضى الصوماليات سنة هذا محانيني وضع مانت وحانيني وضع إن كليبا وليجي سوري أنا ليت سوغالية إن أو عطسدي مدحوينها الصوماليا محمد عبد الله فرماتشو إن أولا كلمو oo weliba lagu qasbay in uu la kulmo mucaaradka Soomaaliyeed wuuna yeelay marka laba jeer ay loogu soo celceliyay waxa la yiri anagu ku imaan mayno meesha joogto dambe dib uma imaanayno marka waxa laga rabaa la yiri in adigu jaziiro noogu timaadid la yiri adoona la soconin faafiyasi wuxuu yiri anigu cabsanayaa ma tagi karo jaziira saaliir waxba ka halaabi maayana wad imaan kartaa la yiri life kaadu waa safe aliir nina waxba kugu sameyn maayo waa diiday maxamed cabdullaahi farmaajo markii uu diidayna asagaa wuxuu yidhi aloora aan isku aragno hoteelkii habeenkii ay ku shirahayeen oo farmaajo uu geeyey ciidamadii nabad sugidda uu rabay inuu maaragta ku afduubto doorashada waddanka oo laga aqbalay laakiin waxaad ogaanaysaan lagama maqnaan doono reer facebook oo dhanna waa aadahayaan idaacaduna waa ka qayb galahayaan inkastoo farmaajo uu diiday dad uu beenlow yahay lama aamini karo marka almeeno recording baa laga hayaa hadduu wax diido ma fahmaysaan qaramada midoobina waa imaanahayaan farmaajo kulleyba waa tegahayaa meeshaas laakiin maxaa ka dambeyn doona wax ma ka qaban doonaa oo wax isbeddela ma samayn doonaa oo nafta shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed oo shalay u been guurayay oo u sabcilaysay wax ma u qaban doonaa ilama ahan marka waxaan leeyahay maxamed cabdullaahi farmaajo wax kasta ayaan ka sugi karnaa marka waxa dhici karta asagoo la kulmay oo ugu masawir ay tahay oo videogii iyo hadaladoodii la duubahayo farmaajo inuu yiraaho maya waxaas waa iska caadi waa in ku qancinay sida ayaantii hore oo kale markay kula kulmeen Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo ay intay sugeen ay waxay dhaheen madaxweyne ma hadishida la yiri soo yiri maxaa ka hadlayaa yiri marka waatay ay ku hadleen waana tuu beeniyay hadda waa rag aan ogeyn inay villada ku wada kulmeen oo ayaguna ka diideen igu masawir iyo midna inaan la sameyneynin laakiin maanta marqaatiyaal baa jiray dadka idaacadiistaha oo special qolooyinka TV-ga ka shaqeeya kulli waa wada tagayaan meesha marka taasaan ni sheegaya quraanka hal hayo afka aayadaha quraanka lagu hayo dhibaato xun baa ka jirta magaalada Muqdisho maalin kasta galabta maghribkii la ii sheegayay bacda salaatul maghrib waxa la yiri maalin kasta qof baa dhimanaya maalin ba dhibaato laakiin dadku waa soo kareen oo ummadii Soomaaliyeed oo shalay u sabcinaysay oo qaarkood ayakoo dhib qabo anigu aan aqaano oo aan sifcan ii yaqaanaan reer Muqdisho waxaan arkayay ay farmaajo iska daafacayeen maxaa ku daafacaysaan dhihi jiray ninkan waxa ay kaliya taliyaha oo wadankan dhibaatada aragtay dhagaxdaad aragtay in ku gooyo oo naagiina dariiqada ku dhalahayaan maxaa ku daafacaysaan waxa la yiri abay dawlad xumo dhaama ila markaas waa runtooda hadii si loo fiiriyo ankii asaga meeshii madaxweynaha ka ah dawladii dawlad laan ma laakiin waxay ogyihiin waqti kooban inuu farmaajo ka tagayo dhalinyaradii aad arkayseen habeen xalayna aan ka sheekeynayay hal mar aan soo galay dhalinyaradii aad arkayseen oo hadlayay go'aanadoodu aad bay u culus yihiin ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa magaalada gobolka Banaadir inuu Soomaaliya dagaal ka dhicin laakiin mid dacaawaanu waxay tahay galmudug waa qasan tahay aad iyo aad bay u qasan tahay gobollo badan baa qasan Hiiraan waa diideen barkii ayakuna de maaragtay waa saxo barkii ballan baa ka dhaxeeyay dadkii maalintii labada gobol la isku dirahayay oo maaragtay la isku keenayay Hiiraan iyo maaragtay Shabeellada marka dhibaatooyinkaas ay jira wuxuu farmaajo ku sameeyeen waad aragtaan afduubkii Axmed Madoobana waa dhamaatay marka waxyaalo badan ayaa jira marka waxyaalahaasna waxaan u maleynayaa in laga tilaabsan doono ilaahay waxaan ka baryaynaa ninkaanu dhibaatada ummadda Soomaaliyeed u keenay ilaahay inuu ka dulqaado ayadoo dhigina ka dhicin asagana dhibaato loo geysanin uu ka jawaabi karo maxkamadda horteedna fadhiisanayo lagamana qarin maanta waa loo sheegay waxa la yiri airportka Muqdisho kama duulaysidaa la yiri yaa ku dhahaya raggii qaramada midoobay qof naftaada ilaalinayana ma jirto farmaajo waa loo sheegay
anigu markastana waa ku soo celceliyaa farmaajo maanta inay tusahayay markuu imaanahayay hadallada uu ku hadlaayay waa opposite-ka kale waa dhinaca kaleeto ma fahmaysaa wixii uu ku hadlaayay waa opposite-ka kale waa dhinaca kale waxaana wanaajinaya hadduu yidhaaho wuxuu kuu sheegahayaa waxaas inuu xumaynayo waana laga fiican yahay laakiin koleyba anigu waxaan inoo hubaa farmaajo hadduu qiiqiiqda dayn waayo horena waa inii ku sheegay weligeyna waa ini dhahay 8 September laisla gaari maayo markhaatiyaalna waa loo hayaayo dowladaha internationalka oo soomaaliya fadhiya ayaa markhaatiyaal ka ah marka maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu roon inuu ceebtiisa asturo maanta adduunyaniya laga bartay barabugandadiisa laga bartay waa nairobi kenya eryenahaya kenya muxuu ku eryenahayaa ya waa siyaasad soo ninkii badda u afduubay soo ma ahayn oo yidhi marka dambaan soo baxayo ayaan 50% ini siinahayaa marka soomaaliya waa iska dhibantay ilaahay waxaan ka baraynaa mid maaragtay lugihiisu saanqeyr qabtay ay yihiin maskaxdiisuna fadhido lalana tali karin oo talada uu qaadan kara isagu uu ogyahay waxa dadka iyo shacabka iyo dalka u roon uu samaynayo marka taas inaan leeyahay waana is arkahayaan raggii maalintaasan si fiican uga jawaabaynaa waxaa jiroo kaleeto waa laysoo dacweeyey dacwo wax kalena maahane odayaashii gada jooga maaha waxaan ka hadlayo ogaadaya odayaashii kale mareexaan oona shaqada ku lahayn waa layla soo hadlay waxaa layidhi awel maxaa lagaa sameeyey farmaajo saad uga soo horjeedaan uga soo horjeedna ayaa layidhi maxaa kugu dhacay qatro marka anigu siyaasadda farmaajo waa ka dagaalsanahay waana kasoo horjeedaa waa u sheegay dad iyo duunyo wuxuu dhaafay male lugahu la maray marka ulajeedadeedu waxay ahayd maxaa wax uga qaban weydeen oo ninka uga qaban weydeen ilaa rag tolka haa tihiin qofka adigu ma ku dhagaysanahaya ayaa layidhi waxa u joogaa layidhi ninkii la dhahayay maaragtay cabdishakuur cali mire iyo fahad yaasiinuu wax ka dhagaystaa dad kale wax kama dhagaystaa layidhi hadalkeenna ma maqlahayaa in waddanka isbedelo dhibaato ay ka jirto marka waa wax laga maaragtay aad looga xumaado marka waxaa la yidhi odayaashii aad caayayso gada jooga oo ku saxsan tahay darkii waa rag lacag qaatayaa la yidhi laakiin mareexaanka kale anugu weligeena mareexaanka kale wax kama sheegin waa ogtihiin laakiin haddii aad ciilka iyo dhibaatada uu nabaday maxamed cabdulaahi farmaajo aad u dulqaadan weydeen cayda waa idinka raaligelinayaa ra'yaydii baa tihin waa idin raaligelinayaa laakiin never ever nimankii lacagta qaatay oo gada ka hadlaayay iyo maxamed cabdulaahi farmaajo never ever inaanan ma aragtay aanan dhaafaynin laakiin adinka intiina kaleeto oo aan aqaano oo dad fiican oo dun fiican aad tihiin halkaanan ka salaamayaa marka xanaaquna waa jiraa ila farmaajo anakoo nool oo ilmaheenni kabaha ku duugay naagaheenni uurka lahaa la duugay raggii dhibaatooyinka uu nagu sameeyey waa aragteen inta qarxis ka dhacday intaan eedo u ahay intaan habrir u ah oo meesha ku dhimatay lama xisaabi karo farmaajo iima nixin aniga si xun oo ii taabtay inta habargidir oo la degto kaleetana waad ogtihiin maaragtay cabdiraxmaan cabdishakuur warsamana waad ogtihiin waxa lagu sameeyey marka anu hore waa u sheegay haddii aan iri maaragtay cabdishakuur u cafiyaan iri annakaanan cafinaynaan iri winaba eba inaan la cafinaynin maxamed cabdulaahi farmaajo inkastoo diinta islaamka iyo kitaabka uu qabo dhig ku gud reexa markuna yidhaahaan saansaan ku gud saxan saxan ku gud marka waxaan leeyahay haddii intaas aad dhibsateen waa idinka dhaafa caydi waana idinka raaligelinayaa qaar baa oday ogeyo jiro wuxuu yidhi raahedhe dhig inuuna kuu gelinaa lagu maleeyay uu yidhi sidaad u caayay siduu yidhi oo xanaaqi uu kaaga tambadiyey waa runtaa been ma aada sheegin dhig waa ii galay oo ra'yayaa ii tihiin oo inuu dhig ii galay laba cali horta isweydiin mayso laakiin dhibaatada uu farmaajo nagu sameeyey iyo dhegala-aanta aad ka samayseen ayaa cayda iyo xanaaqa iyo kulli keentay rag waaweyn oo naqaano siyaasiyiinta ka mid ah oo weliba ra'yayday ah ayaa farmaajo qaban waaye oo dhihi waaye war waxaad ummadda soomaaliyeed ku dhaafaysid ile waxaad dhasheen iyo waxa kala jeclaateen ma lehe moogtahay nin hadle waa la waaye hadda saan ognahay internationalka lacagaa laga aruurinayaa ay hub ku gataan ma saxan tahay marka wax saxan ma tahay farmaajo wuxuu yidhi lacag ha la ii soo aruuriya aan hub ku gatee lacagtii dhaqaalihii soomaaliya intuu geeyey taas ma is weydiisan marka cayda waa inka daayey iska kay cafiya laakiin farmaajo ka fuqi maayo odayaashii geda kacaytama hayana never ever inaan ka fuqahayo anigu mareexaanka ma haysto
wax aan haysto oo mareexaana ma jirto oo shakhsiyana aniga khatra ay iga sameeyeen ma i jirto colaadda intaas la egna iniima hayo waxaana xanaaqa keenahaya dhibaatada farmaajo uu dadkayga iyo ehelkayga iyo dadkan ka dhashay u geysanahayo ma qaadan karo marka waxaan leeyahay haddii aad dhibsateen ra'yaydeeyo raalli ahaada laakiin haddaa i leediin farmaajo ka foq iyo nimankii ma aragtay resada oo joogay oo odayaasha ahaayo lacagta yaroo gunnada inta la siiyey ya oo waxaan ogaa samaynahayey oo xasan sheekh maxamuud caynahayey odaygii kaleetood arkayseen oo sheekh shariif ninkii faruuryaha gajuudnaa asagu mays arka horta wasaqda korkiisa saarneed fiiri waa xanaaqahaya markaan soo xasuusta hadallada ayaka afkooda kasoo baxayso temperatureku waa kacayaa may fahamteen ra'yi marka ha xanaaqinina anigu colaad gooniya oo si kalaa iniima qabo laakiin farmaaja inii keenay waxaanu caaya inay inku dhacaan ama waxaanu dhibaataa ijaafada mareexaan uu u geysanahayo asagii madaxweynaha ahaa ayaa u geysanahaya ijaafo ciddii mareexaan may fahamteen anna iska kay cafiye anna waa ina cafiye laakiin ninka la hadla anigu farmaajo weligay kama fuqaayo my life kama fuqaayo waxa weeyaan farmaajo waa nin qalqala waa nin waalan waa nin stupid ah waa nin aan siyaasad aqoonin waa nin soomaali isku diray waa nin raba dhiigga soomaaliyeed oo daadanahaya inuu arko wax kale madaxweynenimo iskuguma una soo sharaxin annaguna waa aaminay oo waxaan niri war aan qabiil ka tagno qabiilkii aan ka tagnay yaa na soo xasuusiyey hadda maxamed cabdullaahi farmaajo aa na soo xasuusiyey marka ra'yaydayo xanaaqinina gabadhiinni aan ahay anna i cafiye anna waa ina cafinhayaa midda keliya on in ku leeyahay i cafiye maxay tahay mataqaanaa haddii adinka dadkiina mareexaan aad u malayseen ina adinka shaqsi aantiina waxaynii dhibay barkee cayda in ku dhacaysa iyo dhibaatada in ku dhacaysa waa wuxuu ka dambeeyo maxamed cabdullaahi farmaajo oo ummadii dhacay midow qalo iyo midow duugo iyo midow dhabarka ka toogto iyo midow asoo nool duugow ka dhigay dad nool buu duugay maxamed cabdullaahi farmaajo oo aan dhimanin marka waxaan leeyahay dhibaatadan waa imaanaysaa bay sababta waxaa keentoo kaleeto villadii baad isku aruuriseen oo shaqaalihiiad soo wada buriseen horeeyayda wax adinka aan ahayn oo shaqaynayo waa la waayey marka faari qabiilnimo ma tahay taas anuu naceebka ilaa intaas leegna inima hayo laakiin waxaan leeyahay farmaajo waa inaad qabataan waad qaban kartaan haddaad iskugu tagtaan ciddiina resada waad qaban kartaan wuxuu maanta ogaadeen ku samaynahayo oo u ficilahayo maxay tahay ogaadeenso soomaali maaha ay weliba soomaali intay yihiin soomaali dhaladana yihiin ogaadeen farmaajo oromow noo keenay etoobiyaan oo magaaladeennii buuxo baasboorradeennii wata marka waxaan leeyahay anyway taas cidda mareexaanay ku kooban tahay dad kale kuma koobno laakiin maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan ognahay nin qowl leh oonan hadal saxa aanan ku hadli karin uu yahay waa ognahay inuu beenlow yaho beentiisu badan tahayna waa ognahay marka waxaa inii sheegahayaa maxamed cabdullaahi farmaajo ballanka uu dhigay hadduu ka baxo ama uu isku yidhaaho airboortka ku shirqool dadka maxamed asaa ku maqan farmaajo asagaa ku maqan waa inaad ogaataan annaka macaa magaca maxamed kuma sheegna asaga farmaajo len ku sheegnaa barkee magaca maxamed waa magac uu leeyahay nabigayga maxamed calayhi salaatu wasalaam waa la ilaaliyaa ilaaha naga duwaba inaan ugu yeerno asaga dhanba maxamed neenaasti odaygaa loogu yeera waa farmaajo war ilaaha in ku dhaarsheeyey waxyaalaha ninkaana uu ku kacay iyo beenta iyo hagarta iyo dhaqaale xadka war waddanka shilinkii oo dhan uu ka saaray markaasuu maanta wuxuu yidhi mareexaan lacagha soo aruuriyan qurbajoog uu yidhi si aan rasaas iyo buntuqyaal iyo alaab iyo oofiyaal aan u gadanno yay la dagaalamahayaan marka soomaali may la dagaalamahayaan soomaali way iska celinaysaa laakiin anigu waxaan ku leeyahay dhiigii cab baa tahay intaad kursigaas ku fadhiday dhiig baad daadisay farmaajo ilaahina kaa cafin maayo ummadda soomaaliyeedna naba eba adduunyada kuma cafinaysa yaa been lagu sheegin yaana been lagaaga dhaadhicin meel aad uga fakan doontana male ummadda soomaaliyeed ninka waxaa tahay dad nool duugay dad nool ayaa duugtay xabaalo ku duugtay may fahamte dhibaatada ilmaha la xadahayo adaa ka dambeeya maalinba meel baad dadka u jahaysaa adaa saxeexay waa been ma dhihi kartaa ma ah farmaajo ilmaha la kursanahayo adaa saxeexay waa been maa dhihi kartaa ma dhihi kartid barkee winno waxaad saxeexday ilmaha soomaaliyeed in keliyahooda lala baxo ciidamadii la qaaday oo qadar la geeyo ayagoo caafimaad qaba sooma ahayn kuwii keliyaha lagala soo baxay iyo beerka oo xalano lagu dejiyey markii dambe oo dadkoodii ankay loo diiday inay arkaan is right ma ah waa qalad marka intaasaan hadal kusoo koobahayaa xiisaddu aaday u kulushahay sababtoo ana waxay la kulushahay wax kale ma ahaane beenlowgii
maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ballan dhigtay asagaana wacda xisbiyada asagaana maaragta taleefonka u dirsaday asaana la ballamay laakiin waa og yihiin nin qowlle inuunan ahayn waxaa la yidhi ninna qowl baa xira naagna xarig baa xira farmaajo labaduba aboosta kuma ah marka waa ka xumahay aad iyo aad baan uga xumahay soomaaliya ha guulaysataan leeyahay dhigyacab inuu ummadda soomaaliyeed baabi'iyo uu dhigooda uu ku qubaysto u baneeyey ayuu yahay farmaajo waana la iska qabanahayaa maxamed cabdulaahi farmaajo waana qaa'inul wadan soomaalinimo iyo wadannimo waxba kama oga ninka wuxuu u yimid inuu dhaqaalo ka aruursado waddanka oo dhaco markee farmaajo iguma beenayn karo waagii uu ahaa ra-iisul wasaaraha uu noqday ou tegay markuu kenya tegey soomaaliya lacagaa taalla soomaaliya intay lacagtu taalla waa canshuurta dadka laga qaaday lacagtoodii maa lacag u aragtay aad dhulka ugu dhisi leed oo dib waddanka aad u gelin leed tii aad usoo noqotood isku soo sharaxda farmaajo waxaa tidhi investment gashada marka aad iyo aadaan uga xumaa wax loo sabciyana ma tihid waxaa tahay shaydaan ummadda nebi maxamed ku dhex jiraa tahay qofku markuu shaydaan yahayna ceebtaadana waa la ogyahay diintaadina waa bedeshi waad sirtay mareexaanka naftoodaad sirtoo been u sheegtay haddii ay ku ogyihiin islaam inaadan ahayn nin mareexaana kuuma soo kaceen marka maxaad is leedahay ninna ummadda kaama qaban karo am so sorry aan ku leeyahay hadalka gabagabadiisu waa two voice keliya waa laba hadal keliya farmaajo ballan uu dhigay ballankaas ayaan ka warsugaynaa ayakuna waa xujeeyeen warqad bay qoreen waa loo sheegay markuu wacay warqad